بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم waan idin salaamay asxaabta ku xiran janalkeena caawiye kusoo dhawaada janalka gacmo furan inta aan mowduuceena maanta u gudagelin waxaa jira asxaab iga codsatay inaan muuqaalka soo sameeyo buugga magaciisa ah Blue Ocean Strategy runtii buuggan waa buug aad u weyn maalin iyo laba maalin laguma dhammayn karo waan wada hadawshiisa aan ku jiraa laakiin waxay u badan tahay in xoogaa waqti uu qaato marka insha Allah taala waxaan ka dhiganaynaa muuqaalkeena soo socda haddii Rabbi subhanahu wa ta'ala uu idmo si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa asxaabta mar walba ay soo bandhigta buug sidaan u qiimo badan inaan muuqaalka soo sameeyo waxaa jira saaxiib kale hore la wadaagay buugga magaciisa ahaa The Intelligent Investor runtii buuggan wuxuu ahaa buug aad iyo aad ii anfacay saaxiibkii soo bandhigeen inaan muuqaalka soo sameeyo waxaan leeyahay mahadsanid maxaa yeelay buuggan wax badan aan ka faa'iiday wuxuu ahaa buug aad iyo aad u cajiib badan runtii aad u mahadsantahay saaxiib asxaabta kale waxaan ka codsan lahaa inay ila soo wadaagaan buugagtidan u faa'iidada badan si aan dhammaanteena ugu wada faa'iidaysano maanta waxaan ka hadlaynaa mowduuc yar oo faa'iido badan xambaarsan waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo 5 nuqto ama 5 point aad muhiim u ah 5tan point waxay anficaysaa qof waliba oo raba inuu lacag badan kasbado sidoo ognahay channelka inta badan waxaan uga hadalnaa shakhsiga sidoo uu gaari lahaa ama uu ku kasban lahaa hanti badan marka mowduuceena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa 5tan point oo aad muhiim u ah pointiga koobaad waa dakhliga ama meelaha dakhliga ka soo galo pointigan wuxuu dhahayaa ha ku tiirsanaan hal il dakhli oo kaliya macnaha hal meel oo dakhli ka soo galo oo kaliya ku tiirsanaan tusaale waxaad leedahay mashruuc ama waxaad leedahay aan dhahdo dukaan lagu gado bagaashka ha ku tiirsanaan marka halkaas dukaan oo kaliya waxaa laga yaabaa inaad la kulanto khasaaro marka waxaad u baahan tahay meel aad ku baxsato marka aad leedahay dukaanka bagaashka waxaa kula gudboon inaad samaysato dukaan kale oo lagu gado dharka carwo kale lagu gado dharka ama inaad samaysato meel kale lagu gado elektroniga macnaa mar waliba mashaariicda aad leedahay ay kala duwan yihiin waa mar waliba aad faa'iido badan aad hesho ama khasaarahaaga ay yaraadaan haddii aadan lacag u hayn inaad mashruuc kale aad furato waxaad samayn kartaa sidaan hore ugu soo hadalnay buugaagtii aan ka soo hadli jirnay dukaamada waxaad gashan kartaa saamiyo macnaa saami waa naqaanaa in $1 ama $500 ama $500 xitaa aad dukaan gashato kadibna aad ugu xisaabtanto saami ahaan bishiina faa'iido aad ka samayso pointiga labaad bixinta kharashaadka waa point aad muhiim u ah waxaa jirto horaha dhayayso haddii aad iibsanayso waxaadan u baahnayn waxaa imaan doonto maalin aad iska iibin doonto waxaad aad ugu baahan tahay tusaale maanta lacagaad haysataa wax walba aad rabto waad gadan kartaa waxaad soo iibsanaysaa waxyaabo aadan u baahnayn ama waxyaabo ay asxaabtaadu ay soo gateen adna inaad soo gadato ama asxaabtaada inaad istusto in wax walba aad soo gadan karto macnaha in mobile cusub suuq la keeno adigana aad haysato mobile aad u fiican haddana in asxaabtaada ay ku dhahaa war ninkan caadi maaha ninkan kharash badan u haystaa inaad suuqa aad tagto mobileka aad soo gadato waxaa laga yaabaa mobilekaas inaadan isticmaalin oo gurigaas ka dhigto marka kharashkaas aad ku bixiso mobileka maalintay lacagta kaa dhammaato waad u shalayn doontaa waxaadna dhihi doontaa haddii aan mobilkan lacagtaan ku soo gatay aan mashruuc yar ku furan lahaa ama maalgashi ku samaysan lahaa maanta waan ka faa'iidi lahaa marka aan iska wada ilaalino lacagahana soo galan aan ku bixino meel cidla ah meel maalayacni ah arrintaas waa arrin aad loogu fiican yahay oo dib dambena loogu shalaynayo pointiga saddexaad waa point muhiimsan sidoo kale waa keedinta inta badan waan ka hadalnay keedinta fursado badan ayaa abuurtaa marka waxaa jirto horaha dhahayso ha kaydsan wixii ka soo hara markaad wax bixiso waxaad bixisaa waxaad kaysatay wax ka soo hara runtii dadka inta badan ma fahmi karaan orhadan waa orah aad u qiimo badan macnaha waxay ku dhahaysaa markay lacag ku soo gasho intaadan lacagtaas aadan bixin ka hor horta keed dhigo qayb ka mid ah lacagtaas keed dhigo wixii ka soo haro bixi laakiin haddaad dhahdo marka hore lacagtaan bixinayaa kadib wixii soo haro aan keed ka dhigaa waxaa suurtagal ah in waxbayso kuu soo harin lacagoo dhan inaad wada bixiso marka sidaas daraaddeed xigmaddan waxay dhahaysaa marka hore lacagta markay ku soo gasho qaybkeed ka dhig wixii kuu soo haro markaas bixi pointiga afaraad khatarta mashaariicda ha ku tijaabin gudaha webiga adigoo labada lugood gelinayo hal mar macnaha waxaa jiraan mashaariic faa'iido badan laga helo laakiin khatartooda ay aad u badan tahay marka mashruuca noocaas oo kale ah haddii aad rabto inaad maalgashato iska ilaali inaad ku maalgashato lacago aad u badan sababtoo ah faa'iida aad ka helayso iyo khasaaraha kaa soo gaari karaa waxaa laga yaabaa inuu aad u bato
khasaaraha kaa soo gaarayo. Marka iska ilaali mashaariicda noocaas oo kale ah. Bointiga shanaad waa maalgelinta. Runtii waxaan jeclahay inaan dhowr jeer aan ka hadalnay maalgelinta iyo faa'iidada ay xambaarsan tahay. Maalgelinta waa wadada lagu kasbado hantida, laakiin waxaa jiraan shuruucyo iyo qawaaniin ama rules wax lagu maalgashto. Qofka doosan lahayn sharci wax ku maalgashto waxaa laga yaabaa inuu khasaare badan kala kulmo maalgashiga. Marka waxaa jirta xigmad dhahayso ha wada dhigin inta ugu haysato hal dambiil. Macnaha lacagaha aad haysato dhan hal mashruuc wada gelin, hal mashruuc ku maalgashan. Sababtoo ah waxaa laga yaabaa mashruucaas inuu khasaaro. Haddii mar uu mashruucaas khasaarana adigana sidaas aad ku khasaartay. Haddii aad haysato lacag macquul ah aad rabto inaad samaysato maalgelin, waxaad ku maalgashataa ilaa 3 mashaariic markay u yar tahay. Haddii hal mashruuc uu ka khasaaro waxaa macquul ah 2 mashruuc kale inay faa'iido badan ku sameeyaan. Marka mar waliba waxaa wanaagsan markaad rabto inaad maalgashaad samaysato inaad dhowr meel aad wax ka fiiriso, dhowr mashaariic inaad maalgashato. intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa mawduuceena. waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysateen. Salaamu calaykum.